isbahaysiga mucaaradka ugu weyn ee Suudaan ayaa ogolaaday heshiis nabadeed oo lala galo dawladda oo loogu golleeyahay in lagu soo afjaro 17 sano oo colaad ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Suna. Jabhadda kacaanka Suudaan SRF oo ah isbahaysi kooxaha mucaaradka ka soo jeeda gobolka galbeed ee Darfur iyo sidoo kale gobolada koonfurta Kordofan iyo Blue Nile ayaa heshiis nabadeed la saxiixday xukuumadda maalintii Sabtidii. Munaasabad la doonayo si rasmi ah heshiiskaasi loogu wada gaadho ayaa la qorsheynayaa in maalinta Isniinta lagu qabto magaalada Juba oo caasimadda ay dariska yihiin Suudaan oo martigelisay isla markaana gacan ka geysatay dhexdhexaadinta wadahadallada oo muddo dheer socday tan iyo dabayaaqadii 2019. Saraakiisha sarsare dawladda iyo hogaamiyaasha mucaaradka ayaa saxiixay heshiiskooda ku saabsan borotokoolada ku saabsan qorshooyinka amniga iyo arrimo kale maalintii Sabtidii. Si kasta ha noqotee, laba ka mid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka ayaa diiday qayb ka mid ah heshiiskaasi, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhaqdhaqaaqa xoreynta Suudaan oo uu hogaaminayo Cabdallah Wahid al-Nuur iyo sidoo kale garabka jabhadda xoreynta shacabka koonfur Suudaan ee SPLM oo uu madax ka yahay Cabdulcasiis Ali Hilu. Si kasta ay ahaataba waxaa lagu dadaalayaa in maalinta Sabtida heshiis rasmi ah laga gaadho isla markaana la soo afjaro colaadan oo muddo dheer oo ku siman 17 sano soo socotay. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Isku si ayaanu hadalaa, isku sina waanu libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.